السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج كي كافي iyo koonfur Afrika oo toddobaadkan aan ku eegi doono xaaladda akiran ee ka jirta dalka koonfur Afrika kuwaasi oo lagu bartilmaameysanayo dadka ajaanibta ah ee aan haysan sharciga wadankani koonfur Afrika daba xaaladahaasi waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ay si weyn uga jireen magaalada Durban ee gobolka KwaZulu-Natal ee dalkani koonfur Afrika iyadoo dad badan habeenadii la soo dhaafay ay ku hoyanayeen xarumaha ciidamada kuwaasi oo magangelyo weydiisanaya ciidamada booliska ee gobolkaasi KwaZulu-Natal haddaba waxa qadka si toos ah ugu jira Saciid Mire oo kamid ah mas'uuliyiinta u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ee gobolkaasi KwaZulu-Natal Mire soo dhawow marka hore bal inooga waran xaaladda guud ee gobolka KwaZulu-Natal iyo magaalada Durban كافي أديك يو دقيسياشة وأديك قاعد سلامته وأنا محسنتين بعد ذلك أنا عندي مقالة دربن معلومي اللي سود دافعي مركب ما أنت لقى الريبو حالة دي هذه وقع سنوات وإحنا يتقاعدون صوب بالهذي لابد يكون إن شاء الله تنقد بيعقدي دي وكو عندنا عندك أجانب تعلود دي سبتال هذا حل جدا بنكو فافي إن محل جناعسي هريين مركب دمانة ضد محل هذا aan dadka ajaanibta ah ee dalka ku sugan qaar kamid ah ay arintaasi ka dareemayaan cabsi weyn taasoo markii dambe keentay inay police central police station ka tagaan iyo xarunta ee magaalada Durban ee Daikon Center leeyahay waayahay marka dadkan tagay xarumaha dawladdu maxay ka dooneen ma waxay ka cabsi qabaan weerar loogu geysto goobahooda ganacsiga iyo deegaanada ay ku nool yihiin runtii sida ay sheegeen idaacadaha ila hadleen sida ay sheegeen waxa waaye dadka waxay ka cabsadeen maadaama ururkan maaj la yiraahdo kacdoona ay wadaan goobihii ganacsiga ay tagayaan dadka sharci weydiinayaan si qaldan taa ay waxay dareemeen inaysan ammaan ku jirin waxaana keentay markii dambe inay tagaan xarunta booliska ugu weyn magaalada Durban ee Durban Central Police Station la yiraahdo iyo xarunta looyarada ee human rights ka degan yihiin ee Daikon Center la yiraahdo ayadana central magaalada Durban ku taal waayahay marka waxaan arkaynay dad hor tuban xarunta sharci bixinta ee deegaankaasi oo wararku ay sheegayaan in la baarayo dokumentiyada ay wataan saxaanshahooda baaritaankaasi maxaa ka soo baxay isaga runtii shalay warar badan oo saxaafadu ay soo tabiday waxa jiray in waqaal madaxweyne hore Tabiin Beki sidoo kale wasiirada madaxtooyada Windows ee ka hadashay sidoo kale maayarka magaalada Durban Cyril Qaba ayaa asagana tagay Daikon Center oo markii dambe dadka qaxootiga halkaas jooga loo daabuleeyay in sharciyada verification lagu soo sameeyo dawladdu waxay sheegtay 450 qofood oo immigration halkaas joogay baabuurta lagu qaado basaska weynaad ee shalay meeshaas yimid waxayna sheegeen in laba qofood oo hore inta dadku ay sharci yihiin sharcigoodna saxsan yahay wuxuuna tagweyni magaalada Durban uu sheegay dadkan ay xaq u leeyihiin inay guryahoodii iyo shaqooyinkoodii dib ugu noqdaan dadka South Africaanka ay qanacaan maadaama dadkan yihiin dad sharci leh waaya marka ma isleedahay dadka wada banaanbaxyada ay ku doonayaan in dadka aan sharciga haysan ay dalka uga baxaan dadka sharciga haysta sida sharciga ku jooga dalka Koonfur Afrika ayagu ma ku joogi karaan wadankii walwal la'aan iyo inaysan cabsi ka qabin in la soo weeraro runtii ay ku sheegeen qolada maaj dawladuna ay shalay ka dhawaajisay waxa waaye dadka sharci barnada dalka ku jooga oo baa la raadinayaa dadka sharciga leh dalka xaq ay u leeyihiin inay joogaan cabsi iyo walwalna ma qabaan dawladuna shalay carabka ku adkaysay sida duqa magaalada Durban oo kale uu sheegay in loo baahan yahay in dadka si nabadgelyo ah goobahooda shaqo iyo deegaankooda ugu noqdaan waayahay marka bal xaaladda guud ee magaalada Durban saakay waa sidee xaaladda magaalada Durban aaday saakay ganacsigii iyo socodkii waa sidii normalka ahayd oo ku soo noqday maalmihii la soo dhaafay iyo cabsida way iska jirtay walow ay cabsi iska jirto ilaa 30ka bisha June ay sheegeen dadka ururka maaj in ay sameeyaan doonaan mudaharaad weyn haddana waxa laga yaabaa wararkii dawladda shalay ka soo baxay inay isbedel ku sameeyaan waan rajaynaynaa inay sidaa dhacdo waayo intii ay dhibaatooyinkan ay jireen banaanbaxyada iyo dadkan baadigoobaya dadka aan sharciga lahayn ma jirtaa dad Soomaaliyeed oo ay wax dhibaato ka soo gaartay inta ay socdeen dhibaatooyinkan banaanbaxyada runtii ma jiraan qof Soomaaliya oo diiwaan gelinay intii ay socdeen
especially labada maalin saddexda maalin ugu dambeysay magaalada Durban ee ka socda qof Soomaaliya oo dhibaato soo gaartay waxaan rabnaa inaan baaqooda u marsiino dhalinyarada Soomaaliyeed ee social media isticmaala ee falcelinta ka sameynaya luqadaha dadka South Africaanka ay fahmayaan sida Ingiriiska ama luqadaha localka inay reaction ka bixiyaan falalka dhacaya ama u cadeeyaan waxa ay Soomaalidu tahay Carab badan ay South Africaanka ku abuuri kartaa arrintaasna ugu digaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee social media isticmaasha wax fiican ma ahan waxaan leenahay waxaan u baahanahay inaan si Soomaalida wax u soo kordhino mooyee inaan Soomaalida wax u dhinno hadal ah inaan sheegno ma fiicno sida darteed dadka Soomaaliyeed markaan u baahan xilliga aamusta waaye in social media falaqeynta luqadaha dadkan localka ay fahmayaan South Africaanka ama mid Ingiriis ah noqoto inay ka wanto mana jeclaanahay waayahay marka ka community ahaan arrimahan kulamo ma ka yeelateen sidii aad uga hortagi lahaydeen ama dawladda hoose aad uga hadli lahaydeen arrimahan ku saabsan cabsida soo food saartay dadka ajaanibta guud ahaan iyo dadka aan sharciyada haysan markaas ku nool dalka runtii xasan kaafiyo arrinta Soomaalida la habeen oo waalida dhaqdhaqaaqyada wadna waxay ahayd in dadka deegaanka iyo ganacsiyada kule magaalooyinka dhammaan guud ahaan dalka Koonfur Afrika arrintan arrin siyaasadeed iyo dhaqan xambaarsan waaye waxaana meesha kaliya ee haboon oo loo mari karaa waxa waaye maadaama dadkan sida duule iyo maajan maaj wax ku kala duwan yihiin maajan maaj waa dad qabiileysan urur qabiil Zulu Iran ka soo jeeda intooda badan hogaamiyaashooda marka Zuluguna waxa haboon oo aan talaahan soo jeedinaynaa in madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed iyo madaxda dadka Soomaaliyeed u dhaqaaqa inay markaan fiiriyaan in boqorka Zuluga loo tago oo arrimahan jira laga hadlo waana talo aan soo jeedinayno hadii aan nahay dadka aqoonyahanka ama dhalinyarada Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika ku sugan waayay boqorka Zulugu wuxuu degan yahay deegaanka aad ku nooshihiin gobolka KwaZulu-Natal oo ka soo jeeda ma jirtaa marka qaab loogu tagi karo boqorkii oo ay suuragal ku noqon karto in lagala hadlo arrimaha markaas ay doonayaan runtii way jirtaa qaab badan ayaa jirta oo wada dhaqameed waaye dadka Soomaaliyeedna hadda dhowr jeer ay u tageen xaalado badan oo ka xaliyay waxaan rajaynaynaa marka in boqorka hadii loo tago si wada jira ummadda Soomaaliyeed muuqeeda iyo magaceeda lagu tago odayaasha dhaqanka matalayay iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalka jooga iyo madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay wax badan ka qaban karaan arrintaas waayahay Saciid aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa saakay inaad qayb ka noqoto barnaamijka KAF iyo Koonfur Afrika oo aan ku wareysano mar walba ama aan ku soo bandhigno xaaladda Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika aad baad u mahadsan tahay Saciid aad mudan xasan kaafi